kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. haddii nagu cusub tahay subscribe oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. jeedinta ama sheegista waa kala duwan tahay ama waa ay kala fiican tahay marka la eego qof in la dareensiyo faa'iidada ugu jirta waxyaabaha markaas uu qofku u arkay inaysan u fiicnayn. habgudbinta ayaa kala waxa lagu kala hormaray iyadoo qofka bini'aadamka laga yaabo in si degganaani ku jirta iyo caqli adoo adeegsanaya inaad uga dhaadhicin karto qofka faa'iidada markaas waxa aad isleedahay waa muhiim in aad gudbinta aad u isticmaasho. midigta waa waxa ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka ku dhaqmideeda shaqada ay qabato iyo sida dadka laga baahan yahay in ay kaga faa'iideystaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa jeclaa in saacadda uu ku xirto gacanta midig sidaasoo kaleba midigtu u tahay midda suubanaheena uu nafaray marka la eego salaanta cadayga cunista cabista xirashada dharka kabaha ka bixida guriga iyo wixii la midaba in iyada lagu bilaabo. waxaasoo dhan waa la sunneeyaa in midigta lagu hormaro marka sidaas awgeed haddaad xaragoonaysana midigta ka xarago oo midigaysigu jeclow ayaa lagu leeyahay sida suubanaheena Muhammad calayhi salaatu wasalaam laga soo xigtay. waa muhiim in dadka qaarkood ay u fahmaan midigtu inay tahay mid muhiima taas oo raashinka qofka markuu cunayo ay muhiimad u tahay in gacanta midig u isticmaalo. Soomaali badan ayaanu aragnay iyagoo gacanta bidix ama guraylaha dadka ay isticmaalaan iyagoo gacanta midig raashinka ku cuna wax ku qabsada laakiin awoodoodii kale ee gacanta midigta ay kaga xog badan tahay shaqooyinka marka ay qabanayaan gacanta bidixda. daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeynayna muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment. intaan muuqaalkan mid la mid isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.